mustaqbalka Messi waa mid hadalhayn badan ka sameynaya suuqa kala iibsiga. Xiddigan qandaraaskii kula jiray naadiga PSG ee labada sano ahaana toddobaadkan uu soo afmaray kadib markii kulankiisii ugu dambeeyay kooxdan uu matalay. Haatan lama oga kooxda cusub ee xiddigan uu ku biirayo, inkastoo horyaalo kala duwan oo ah Aasiya, Ameerika iyo Yurub ama saddex qaaradood oo kala duwan kooxaha ka dhisan xiddigan xiiseynayaan. Haddana Messi ma caddayn isaga mowqifkiisa, laakiin waxa ila wareedyada qaar ay ku waramayaan in toddobaadkan haatan lagu guda jiro ama midka nagu soo fooda leh labadaas midkood uu caddeyn doono mowqifkiisa iyo halka uu kooxdiisa cusub ama halka uu weecan doono xiddigan mustaqbal ciyaareedkiisa. Leo waxa uu dalab ka helayaa kooxda David Beckham Inter Miami oo dalka Mareykanka ama cariga dalka Mareykanka ka dhisan. Naadiga Sacuudi Carabiga ka dhisan Al Hilal iyadana qudheeda waa ay doonaysaa. Kaba marna kooxdiisii horeetay ee Barcelona oo dhan dhaqaale ahaan iyadana ciilaysa, halka Al Hilal iyo David Beckham iyaguna ay ka dhaqaale wacan yihiin marka loo fiiriyo Barcelona. Wargeyska Sporting ee ka soo baxa gudaha dalka Spain ayaa ku waramaya sida tani. Naadiga Al Hilal waxay wafdi u dirsatay magaalada Paris si ay ula soo siixato Lionel Messi. Waa iyada sida ay warka u qoray ama waa sida wargeyska Sporting warka uu qoray. Saxiixa Messi ayaa si degdeg Al Hilal u doonaysa ama durbadiiba ololaha ay galaysa si ay ugu qancin lahayd in horyaalka Sacuudi Carabiga uu soo dhaqaaqo ninkan reer Argentina ee ku guuleystaha koobka adduunka ah. Laakiin Xavi Hernandez wuxuu horey u sheegay 90% go'aankiisa kooxda cusub ama kooxda xigta ee xil ciyaareedka dambeeta uu ku soo shirtagi doono ay ku xirnaanayso in Messi dib ugu soo laabto Camp Nou. Madaxweyne Joan Laporta qudhiisa wuxuu goor hore saxaafadda ka hor sheegay in wax kasta ay awoodaan ay sameyn doonaan sidii Messi ay u soo celin lahaayeen. Isla Sporting ayaa ku sii waramaya in Barcelona haatan kalsoonidii hore aysan qabin, maadaama horyaalka dalkaasi Spain ee La Liga uusan u cadeynin qorshahooda suuqa kala iibsiga iyo waxa ay sameyn karaan. Kooxdani xaalad dhaqaale xumo ay sanadihii ugu dambeeyay dhaxda kaga jirtaa, iyadoo aan loo cadeynin qorshaheeda suuqa kala iibsiga ma awoodi karto in Messi ololihiisa ay gasho ama dib u soo celinta ay gasho. Laakiinse waxay horey u sheegeen macalinka kooxdaasi isla madaxweynaha kooxdaba in xiddigani ay jeclaan lahaayeen inuu dib ugu soo noqdo Camp Nou. Xilli taageerayaasha marka garoonka la joogo ay si aad u muujiyaan inay jeclaan lahaayeen in Messi dib ugu soo laabto garoonka Camp Nou. Laakiinse madaxweyne Joan Laporta oo dhawaan la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay sameynayaan wax kasta oo awoodaan sidii Messi ay dib ugu soo celin lahaayeen. Laakiinse warka Sports ay qortay ee ah in naadiga Al Hilal ay lacaga adeegsanaysa ay markana soo dirsatay wafdi si ay Messi ugu qanciyaan inuu u soo dhaqaaqo dalkaas iyo Sacuudi Carabiga, halkaas ay xusid mudan tahay in goor horeba Cristiano Ronaldo halkaasi tagay. Sidee bay kula tahay adiga mustaqbalka Messi inuu go'aansan doono? Ma waxa wacan inuu kooxda kubadda cagta Barcelona dib ugu laabto ama dalka Mareykanka iyo Inter Miami David Beckham kooxdiisa inuu iska dhiibo, ama mar kale isaga iyo Ronaldo inay challenge ka dhex dhashaan oo horyaalka dalka Sacuudi Carabiga uu aadsado fanaanada Al Hilal uu gashto.